kani waa Cabduqaadir Cabdi Kariim oo ku magac dheer Mirig waa qof muddo 25 sano ku soo noolaa wadanka Britain hadda uu joogo magaalada Muqdisho waxa uu sameeyaa arrimo wacyigelin oo ku aadan tahriibka waxa uu soo maraa wadooyinka magaalada Muqdisho kuwoodii ugu muhiimsan erayo oo inta uu wadada uu marayo uu ku dhawaaqo ayaa jira waxana kamid ah Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Mirig ayaa ii sheegay in mikrofon uu qaato dadkana uu ka wacyigeliyo arrimaha tahriibka inkastoo markii aan la kulmay uu ii sheegay in mikrofonkii laga xaday balse maxay yihiin erayada uu adeegsado adigoo taliya oo taajira oo taag darayn oo 10 kun haysta tribal u tahriib talxuma ma dhaafto waxaan ku iraaho kale dumarkiina iska dirinina anaguba dahaban dalka Dubai dalxiis u geeyay dukaanka daruuraan dahab wasdeeyntay dalka Denmark ayay u taariibtay dibna ay soo deeyin ee dumarkiina iska dirinina dalkayga aniga dayacay aniga dawarsi dibadda u tagay dib markaan u soo laabtane dagaana ka dagaalayga diiday sarta dabka darbigeeda ayaan deganahay oo dugsada ee dad iyo taariibina hadaa taariibtaan dib u soo laabanina degaan ma heli doontaan Mirig ayaa la hadlaya dadka ku haminaya in ay qurbaha ay aadaan si kooban ayuu iigu sheegay dhibaatada qurbaha ka taagan sheekadan ayuu ii soo qaatay dakor ayaan wadanka Ingiriiska markaan tagayay ayaa waxa ila socotay riya hal Soomaaliya waxa ka qaxa kaliya ma ahan dadka xooluhu waa qaxeen ridi waxay tiri balad weyne buula bardo balcad baraawe baar dheere buula xaawo badar iyo buunsho iyo balka ma weyne beeliqa ka soo baxsaday waxaan balay u bixi karaa inaan British passport helo hashiba soo booday waxay tiri geedii garigu waa la guray galeedii waa la waayay garsoorkii hoos ba u dhacay intaas waxa ay dheer dib dheef la'aan iyo dukaan gareed Britain waxa ka codsanaya geela geeska Afrika in gargaar degdeg la gaaro aan guri qabow ka galeegeeyo anigi waxaan sheegan garan waayay sababta xoolihii baa iga qalbadan oo dhibaatadii sheegaya marka waxa ay report iyo busaarad iyo been ayaa ka soo baxsaday wax kale oo sheegay waan aqoon waayay inkastoo dadka ay la yaabaan marka ninkan uu wadada marayo uu ku qeelinayo erayada wacyigelinta ayaan waxaan weydiiyay sababta arintan ku kaliftay wallahi waxa uu kalifay dadkeygii markaan u imid oon arkay oon qashinka iska qaadayn su'aal baan keen waxa ay wariyaa yaqaana qaaruun aan qashinka iska qaadina qashinka barkata qashinkiiba iska yaala waxaan ka naxay anoo maraya jidka weyn banaadir u dhaxay digfeer ayaa waxaan arkay sac baawur dilay oo iska yaala oo wax qaadaya jirin wallahi waxaan ku yiri war iska qaada war damka laadihiin war waa disheen war iska qaada waxaan kala arkay sanbab dhax yaala wadada Makka Mukarrama farmashiya caalamiga ama loo yaqaano hadeer hortiisa yaala ayaa arkay sanbab weyn oo yaala Muqdisho oo meelaha qaar marka aad marayso cabsi ay tahay amni ahaan ninkan waa sidee dareenkiisa meelahaasi oo kale marka uu socdaalayo dadku waxay yiraahdeen yaa lagu dilin dad Soomaalida nacab baa jira yaa lagu dilin anigu waxa weeye kulli waxaan ku jiraa markii la dhima lahaa dhibaatana ma hayso midda kale wadankan hadaa rag u dhiman calanka rag baa u dhintay gabdhaha u dhintay dahabkooda u dhiibay marka in loo dhinto oo dadka la wacdi geliyo waa muhiim wax qatarana kuma aragba qol kasta way soo dhawaysaa group kasta askarta ciidamada cid kasta oo magaalada maraysa waxaan waliba aad u jecelahay dadka casayaasha kuwa tuugsada gabdhaha shaaha gada gabdhaha petrolka gada gabdhaha qaadka gada dadkaas oo way soo dhaw Xasan Maxamed Aways Jubaland TV Muqdisho